Ibrahim Magan Health Center waa xarun caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanka cadaad ee degmada Bakke gobolka Awdal taas oo baahi aad loo qabay. Fikirka xaruntan caafimaad ee Magan Health Center ayaa waxa uu ahaa mid ka soo fulay qurba joogta ka soo jeeda deegaanka cadaad ee gobolka Awdal. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla mar ahaantaana kulmisay dadweyne tiro badan oo iskaga kala yimid gobolada kala duwan ee dalka ayaa waxay ahayd mid si rasmi ah xadhiga lagaga jirayay iyadoo goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani iyo maayarada magaalooyinka Bakke iyo Boorama. Sidoo kale waxa goobjoog ahaa barasaabka gobolka Awdal hogaanka dhaqanka gobolada galbeedka Somaliland. Hadallo kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay ugu horeynba waxa halka ka hadlay Suldaan Xasan Xaddi Baado oo ka waramay baahida loo qabay xaruntan caafimaad. Waxa uu sidoo kale mahadnaq ballaaran u jeediyay guud ahaanba dadkii ka qayb qaatay dhismaha xaruntan. leenahay halka waxa laga dhisay xeedho weeyaan meeshaasi waa xeedhana waxay u baahan tahay wax lagu rido marka wixii lagu ridayna wuxuu u baahan yahay wax ka cuna. waxaan leenahay hadday dawladda tahay hadday wasaaradda caafimaadka tahay hadday hay-adaha tahay hadday dadweynaha gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka degan tahay waxaan leenahay xeedhadaa waxa lagu soo rido. sidoo kale hadalka waxa iska daba qaatay hogaanka dhaqanka gobolada galbeedka Somaliland maayarada magaalooyinka Bakke iyo Boorama iyo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Geesta kale cilmi anfaca dadka qofka ka taga ama qofka ka taga waalid ilmo wanaagsan oo u duceeya ganbay ka muuqdaan. maanta laga bilaabo ay xukuumadda ku wareegtay wasaaradda caafimaadka. wasaaradda caafimaadka oo wasiir ku-xigeenka uu madax ka yahay in badan baa ka joogta. waxaan ka codsanaynaa inaanu sida MCH badan oo aan arkay oo ku yaala gobolka oo la xidhay inaanu sideeda noqonine oo socdo. Ibrahim Magan oo loogu magac daray MCH kan ambooskiisii maanta taagan oo anigu hayo xilkii degmada Boorama ballan qaadaya 3 biloodkiiba waxaan xanaanooyinka kala gaarsiino. waxa hadalka iskaga kala dambeeyay qaar ka tirsan qurba jooga iyo qolqol jooga ka soo jeeda deegaankan waxay mahadnaq ballaaran u jeediyeen gebi ahaanba dadkii ka qayb qaatay dhismaha xaruntan caafimaadka. jecelahay oo aan insha Allah idinkana leedin ka codsan haday dawlad tahay iyo haday shacab tahay in olol la qaado dib u dejin la sameeyo oo dadka xarumahan oo kale loo sameeyo iskuulkii iyo dhakhtarkii iyo biyihiiba loo sameeyo. wuxuuna ku dhamaaday dhakhtarkan ilaa 2 bilood iyo badhbu iyo gurigaas ku dhamaaday juhdi badan iyo waqti badan iyo duruufaha meesha yaala oo aad adag in la dedejiyo ayaa khasab noqotay. qurba joogta waxa weeye deegaanka oo aad iyo aad hantidoodii iyo maalkoodii galay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barkeeyo. dadka waxay naftoodii iyo maalkooda u soo horay u soo haray degmada ee halka dhakhtarka uga sameeyay ee dadka aan kici karin aan dhaqaaqi karin aan wada lahayn ee midalan aan cidba ka warhaynin soo xasuustay. barasaabka gobolka Awdal wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo dhankooga hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waa la dhisaa meel laakiin in lagu shaqeeyo oo la dhaqaajiyo ayaa aad u adag. waxaanu leenahay hareerahan iska taagno ninkii oo dhintay baa loo bixiyay waa sharaf weyn inta u bixisayna inta fulisana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaanu noo farxada inaanu ku soo wareejinay oo lala wareegay labadii FCH baa dawladdu maanta la wareegtay. xataa hay'adaha ka weyno taakulo iyo taageero waxaan xaqna loo ku leeyahay inaanu qaybta miisaaniyadda qaranka aanu uga hayno qaranka inaanu ka hirgelino oo ka socodsiino MCH kan cadaad ee aynu maanta joogno. sidoo kale waxaan idinku bishaareynayaa qabadka xukuumadda ee 120 maalmood ugu horeeya. Ibrahim Magan Health Center ayaa noqonaysa mid gebi ahaanba dadka deegaankan ay kaga raysan doonaan baahidii caafimaad iyagoo socod dheer u soo gali jiray xarumaha ku yaala magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama. Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV deegaanka cadaad degmada Bakke ee gobolka Awdal.